dhegaystayaal xurmo iyo maamuus siyaada ah ayuu xididku isku lahaa sidaan barnaamijyadii hore ku soo xusayna waxaa jiray dhaqan u gaar ahaayo tiirarka ugu waaweyn ay ahaayeen kala xishoodka kala gabashada iyo wax istaarashada waxay xididtinimadu lahayd wax dheef aan marka hore lagu talagelin asii gadaal ka yimaada taasna intaan isku dayo inaan tusaaleeyo aan idhaahdo dhowaan ka hor guurka qoyska dhexdiisa ah soomaalidu ma ay aqoon hadduu dhici jirayna dhif buu ahaayoo sida carabta ilmaadeerada laxmiga ah isuma ay dhisi jirin barbaar waliba markuu guur hawaysta waxaa lagula talin jiray reere ay dhul iyo abtirsiba ku kala fog yihiin inuu u gayaan doonto taas markuu yeedhana waxaa siday u badnayd u dhalan jiray rag wada cirkayeer ah oo waaga dambe bulshada dhexdeeda ka tilmaanaan jiray dhanka kale marar badan ayaa guurka fog lagu badbaadi jiray inanka iyo inanta ku dhashaana waxay yeelan jireen qaraabo aan xagga aabbaha keliya ka soo jeedin oo si uun ay ugu baxsan jireen ka soo qaad xilliga colaadaha laba qolo markay diriirto goobaha dagaalka ninka lagu qabto haddii aan si degdeg ah loo mindi raacin waxaa ku hagoogan jiray qaar ay xidid yihiinoo uu isagu dumar ka qabo ama iyaguba ka qaba waxay u badnayd isaga oo bad qaba inuu ku noqdo dhulkii uu ka soo duulay taasina guurka fog iyo xididtinimada ku abuuranta oo qura ayay ku suuroobi jirtay gabadhiisu guur ma lahayn walaashiina looma hawoon jirin nin hortiisa seedigiis ama sodogiis lagu dilay amaba lagu macjuufeeyey wax dheefka kale ee guurka fogi lahaa waxaa ka mid ah wax istaarashada markii ay baahi timaado kolkii xoolaha laga dhaco ama abaar diirata ahi ay dagaankiisa ku habsato xididku waa istaageeri jiray hadba dhinaca liita ayaa dhinaca kale wax bidi jiray inay isqadiyaanna uma badnayn mararkaas oo kale xididka ayayba tolka kaga kalsoonaan jireen sidaa daraaddeed in sokeeyuhu wax isu diidaa ma ahayn wax ay bulshadu la yaabto waxayse la yaabi jirtay xidid isa soo tamadeeyey inay hungo ku kala laabtaan hadday dhacdana waxay ahaan jirtay wax dhinaca ku kaca lagu ceebeeyo allaha u naxariistee cabdi maxamed owmagan oo cabdigalayax loo yiqiin ayaa beri wuxuu geeraar ka tiriyey geelii oo u badan waayey inkastoo uu si walba dhaqaalihiisa ugu dadaali jiray tuducyada geeraarkaas ugu horreeya ayuu ku soo qaaday laba arrimoodoo ay la ahayd inay ka mid ahaayeen sababihii uu geelu ugu tarmi waayey midda hore wuxuu ku sheegay nin seedigiisa oo gabadh isaga la walaal ahayd ay u dhexday kaasoo geeliisii wax ka siin waayey tan labaadina waxay ahayd isaga oo ahaa xalaal quute xaaraanta ka caaganoo aan jeclayn marnaba xoolo booli ahi inay xedhadiisa galaan meerisyadaas oo ay hubaal tahay xididkii lagu xusay markii ay maqleen inaysan ku farxin wuxuu galayax ku yidhi dhugmalaysaga geela tacabkii iga dheeroo dad ninkaan dhuganayo walaashay u dhisnaydoo dhowrka wiil u lahaydna dhacan buu iga saartay anna dhoombir ma qaato col dhaqaaqay ma raaco booli dhool kuma keeno waxaa marar aan badnayn dhici jirtay nin dhowaan guursaday inuu la dego qoyska uu la xidhiiday gabadha aabbaheed iyo hooyadeed in aqalkiisa laga ag dhiso oo intii muddo ah uu reerka ku quud iyo qaaraan noqdo ninkaas oo kale inanlayaal bay ku magacaabi jireen waxaana la odhan jiray reer xididkiis ayuu mindhisme ku yahay waxay ahayd arrin uu dhaqanka soomaalidu oggolaa asii la wada qabay in laga roon yahay sidaa darteed waxaa alaaba barbaarka reerka cusub dhistay lagula talin jiray in aanu la ood noqon qoyska uu la xidhiiday ee gabadha dhalay taas ayay door bidi jireen markaasna waxay ka cararayeen in si hoose la isu barto la isugu fiirsado la isa sii hunda ogaado dabadeedna xididtinimadii wanaagga ku bilaabatay uu madmadow soo dhex galo waxaa la hagaagsanayd inta la kala fogaado in la isu soo xiiso oo markii waa la joogaba iyada oo la isku wanaagsan yahay dhinacba uu dhinaca kale halkiisa ugu sadcaalo halkiisa wax ugu doonto halkiisa wax ugu geeyo amaba tala cuslaatay wax ka furdaaminteeda uu ugu tago waxay odhan jireen inta la kala maqan yahay dheef keliya lalama kala maqnee dhibna waa lala kala maqan yahay waxay kaloo ku maahmaahi jireen xidid wada degay waa waxaa uu wada degay wax inaan afka ku ballaariya ay gu adag tahay sariigtuna
ay ii diidayso. hidda ahaan wadadegista xididka in laga fiican yahay si ay inoogu sii caddaato waxaa inagu filan inaan xusuusanno sheeko caan ah oo garsoorka soomaalidii hore ku xusan. waxaa la yidhi nin iyo sodohdii ayaa sheekaystay, saa hadalkiibaa ka xumaaday, dabadeedna way murmeen. garan mayno shayddaankii ka dhex shaqeeyey wixii uu ugu soo gabaday, waxaase ka dhex dhacday foolxumo aan cidina filaynin. inankiibaa inta dhab u carooday isxakamayn waayey, markaas buu duqdii uu gabadheeda qabay dharbaaxo kaga soo qaaday. waxay noqotay xaajo ciddii maqashaaba ay la amankaagtay. qofkii loo sheegaaba afkala qaad iyo qaadan waa buu ka qaaday. waa la isku uugaamay. xaggee wax laga qabtaa iyo xidhiidtinimada labada reer sidee loo badbaadin karaa ayaa la ishaybiyey. odayadii degaanka ayaa geedkii shirka degdeg ugu soo ururay. arrintii markay gudagaleenna way ku cuslaatay. maxaa yeelay iyada oo kale horay uma ay soo marin. ma ahayn xaajo curad ah oo mid ka horraysay oo loo tixraaci karaa ay jirtay. ugub bay ahayd. dhowr maalmood haddii arrintii loo fadhiyey ayaa waxaa loo batay inanka in la saaro ganaax xoog leh oo dharbaaxada sodohdii uu ku mutaystay. iyada oo in guddoonkaas la rido kaabiga loo joogo ayaa waxaa geedkii ku soo biiray oday la wada yaqiinoo garyaqaana. isnabdaadin kadib waxaa loogu celiyey gartii geedka tiilay iyo wixii loo batay. markaas buu yidhi waxaasi garsoor ma aha, taladii hagaagsanaydna ka ilduufte. inankuna wax gardarro ah oo lagu ganaaxo kuma uu kicin. saa inta hadalkiisii lala ashqaraaray baa iskumar waxaa lagu yidhi, hebeelow ma waalatay mase waad soo wadataa? ma ninka sodohdii dharbaaxay baad leedahay wax lagu yakeeyo? ma uu falin. wuxuu yidhi haa, welibana sodohda ayaa gardarrada iska leh, oo sababtuna ayaa la weydiiyey. markaas buu yidhi iyada maxaa joojiyey inanka ay sodohda u tahay kobta uu dharbaaxada kala gaari karo? hadal kama dambayn. geedkiina waa lagu kala dareeray iyada oo wixii dhacay eedooda sodohdii dhabarka loo saaray. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale oo ku saabsan soomaalida iyo dhaqanka xididka hadduu eebba idmo.